هلل الكون سرورا وابتهاجا عندما أشرق في الليل سراجا. هلل الكون سرورا وابتهاجا عندما أشرق في الليل سراجا. عندما أشرق في الليل سراجا. نورهم شمس تلوح ركبهم يعنى السرور خيرهم مسك يفوح إنهم جيل الطموح. نورهم شمس تلوح ركبهم يعنى السرور خيرهم مسك يفوح إنهم جيل الطموح. إنهم جيل الطموح. طموحنا براق ونشأنا تواق وجيلنا سباق للمعالي دربنا. طموحنا براق ونشأنا تواق وجيلنا سباق للمعالي دربنا. طموحنا براق ونشأنا تواق وجيلنا سباق للمعالي دربنا. للمعالي دربنا. بالعلم والقرآن نبني جيل مجد وفخار. جيل مجد وفخر. ولنا الأخلاق نهج تاج عز ومسار. تاج عز ومسار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى ما أنتم حاجيسوا قد من دونا ودوين كله قاضي علمها حلقة القرآن كلا برايو طرق تحفيظ القرآن الكريم الأطفال. إلى شن وضع إن شاء الله ما أنت إيسوا قد من دونا فيديو وفي كان حيجنا وحديثوا قد من كعاد شن كنت كلامتوا كحكتم. waxaan rajaynaa hooyo badan inay dhihi dooneen cunugayga damiin waa wax damiin ah ma jiro wax qof aan wax baranaynin ma jiro bes waalidiinta ha iska dhaafaan wax inay macalinka ku calaacalaan ee sheegdaan macaan cunuga wax ma baranayo habeenkii ay TV ay u shidaan ama insha Allah cunuga ayaga naftirkooda u bilaabeen taxfiidka taas waalidka ayaa ku qaldan insha Allah qaladaadka waalidiintana marxal kale ayaa soo duubi doona. hadda bes waxaan maanta idin bilaawi doonaa cunuga koorma horta loo bilaabo taxfiidka quraanka kariimka. cunuga taxfiidka waxa loo bilaabaa xilliga uu caloosha ku jiro. waa laga yaabaa badankiina sidaan qof calool ku jiro oo janiin urjiif muxuu ka fahmaa quraan loo daaro ama wax agtiisa lagu daaray. ilmaha markay caloosha hooyada ku jiraan quraanka loo daaro fawaa'id ay u leeyihiin aad ayayna u anfacaysaa caqligiisana uu ku zaa'idaysaa. tan xigto qodobka xigo oo qodobka labaad waa cunuga markuu radiic ama xilliga naas nuujinta oo Soomaaliga lagu dhaho. xilliga hooyada cunuga naaska nuujinaysa 2 sano ugu horeysa sidoo kale quraanka waa loo daarayaa oo lagama dhaafayo caloosha markuu ku jiro soo daari jiray hadda iga dhaaf ma jirtay sida ayaa uu sii daaraysa quraanka xilliga radiic yahay. cunuga markuu radiic yahay oo yar yahay caalashan uu aad u yar oo jiifay oo xilliga naas nuujinta markuu marxaladaas ku jiro wuu dareemayaa wuuna ogyahay wayna saameynaysaa dhawaqyada agtiisa ku dhacay. marka saas awgeed ha saameeyo quraanka u daar hooyo cunugaada quraanka. qodobka saddexaad oo idin soo sheeg duruqda kamid ah waxa waaye cunugaaga hortiisa ku aqri quraanka. cunugaaga hortiisa salaad ayaa ku tukataa waad aragtay waalidiinteena badanaa way arkeen si baraatika asoo loo sheegin cunuga hortiisa marka salaada ku tukato asna isla sidii ayuu sameynaa inuu rukuuc oo sujuud oo qof weys qaadanaya amal iska dhig oo weys qaat oo sameynaa ka bacdina uu tukado. maxaa qalimaa tukadaad waa may waxa laga yaabaa 4 sano iyo 5 sano ilaa 3 sano inuu jiro oo waalid uusan ku amrin inuu tukado laakiin wuxuu ku dayasho ka qaado oo ku daydo waalidka tukanaya. marka saas awgeed marka adiga quraanka akhrisid oo hortiisa ku akhrisid cunuga quraanka uu jeclaanaya shay weyn oo agtiisa qaali ku yahay inuu yahay oo waalidkiisa basas u akhrinaya ay dareemaa marka hortiisa ku akhri. qodobka afraad ayaa waxay tahay cunugaaga marka quraanka hortiisa ku akhrisay oo asoo calool ku jira oo soo daartay oo asoo yar oo umul oo sariir jiifa u daartay hadeertan waxa laga yaabaa ama inta badan dhacdo inaad suurado qaarkood ay bartaan cunugii suuradihii uu barta qaar kamid ka duub cunugaaga wabacdayna codkiisa oo duuban oo sajilan xilligu maqan yahay iyo soo joogaba daaro ha dareemo inuu codkiisa qiimeynaysid oo quraankii uu duubay aad dhageysanaysid. cunugii taas waxay u noqonaysaa dhiirigelin oo dareema bini aadankan uu jecel yahay tashjiica iyo dhiirigelinta in dhiirigelinta loo sameeyo. markaas cunugu wuxuu sameeynaa inuu dadaalo oo jihdu bixiyo wuxuu ku leeyahay hooy dugsiga dugsi dhigan haduu dugsi dhigtan wuxuu leeyahay hooy dugsi marka gaarso diblaamka gaarso inuu codka soo duubo inuu culumadii mashaa'ikhda quraanka dubto kaleento hebelo hooy in amal inaan qadaar baa ku leeyahay codkiisi inuu asaga daneeyo hadda oo daarto quraanka uu sameeynaa marka codkii aa u dubtay. qodobka u dambeeyo oo aakhirka aan ku soo gabagabeyn doono insha Allah waxay tahay fiidiyowgaanaytii
cunugaaga markuu jus gaaro markuu xisib gaaro markuu meel qur'aan ka gaaro markuu suurad gaaro u hadiyay wax si hadiyad haba yaraatay waxay rabtaa ha noqoto shay u hadiyay aadanaha hadiyada uu jecel yahay milkintana wuu aad buu u jecel yahay markuu wax milkiyo oo waxaan adaa iskala lahaa aad buu u danaynayaa ku dhiirigeli si hadiyooyin u sameey farxalada u sameey waxaan sameynaa maalmo oo maalinta heblaay lahaa maalinka saan cunugaaga maalinku quraanka dhameeyo maalinku farbarka barto maalinku jus dhameeyo maalinku loo jus barto u sameey dhiirigelino markaas cunugu wuxuu helaa u noqonaysaa arintaas dhiirigelin weyn ayay u noqonaysaa hooyooyinka ha iska dhaafaan ilmaha moraal jabka ay ka sameynayaan ilmaheena way noqon karaan xaafidul quraamiin insha Allah taala waa rajaynayna inay noo noqdaan ilaahayna ha nooga yeelo kuwa wanaagsan bis hooyada iyo aabaha waxaa looga baahan yahay duruqdaas intaysan qaadin ka hor inay horta Allah ay u baryaan inay u duceeyaan inayna Allah u tala saartaan ducada cunugaaga u duceysid wax weyn ayay u qabanaysaa u duceey mar waliba oo salaada tukatid inuu ilaahay kaaga yeelo qurrata ayn ilqabowsi cunugaaga inuu Allah kaaga yeelo allana u tala saaro fitnada jirto inuu Allah ilmaheena nooga xifdiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh